taraagiyada qaboojiyayaashu ku xiran yihiin maanta banaanka inoo taagan hadafkooda ugu weyn waxa weeye in dadka xeebaha degan ay uga faa'iideystaan kalluunka ay tabcadaan ama ay soo qabsadaan inay keenaan meelaha ay ugu iibgelayo arrinkaasuna arrin muhiim weeye taraagiyo qaboojiyayaashoodii leh oo laga soo qaadayo meelaha fogfog ee kalluunka laga soo dabto lagu keenayo meelaha suuqa iyo market ku yaalo fikirkaas annaga keenay waxaan halkan ka sheegi doonaa haddii ilaahay idmo in mashruucan uu soo dhamaaday maantana gabagabadiisii la joogo aan halkan ku xidhi doono gaadiidkan lagu soo gabagabeeyey oo tallaabadii ugu dambeysay saan sheegay ay tallaabo fiican noqotay waa jirtay mashruuca waxtarkiisii iyo suu u shaqaynaya meelaha aan ka salsalugsanayn laakiin gunaanadkiisa waa ku faraxsanahay maadaama aan isleenahay qayb waxtar Soomaaliya u leh oo haraysa oo dadkii dhaqaalahan soo bixiyeen ay arki doonaan iyagoo shaqaynaysa baa lagu soo gabagabeeyey waxaan maanta halkan rabaa inaan ka sheego inaan kala wareegnay gaadiidkaas as federal inaan ugala wareegnay ciddii gaadiidka ku shaqayn lahayd dawlad goboleed iyo private sector hadday noqotana annaga haddii lahayd ku sii wareejinayna ku xisaabtamayna mashruucana halka aan ku soo gabagabeynay gaadiidkana aan saa kula wareegno mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa bashtoorka iyada oo runtii dadaal badan iyo inta badan waqti badan geliya hawlaha Soomaaliya waxaan kale u sheegaynaa mashaariicda noocan oo kala ah Soomaaliya badeedu waa badihin waxay u baahan tahay iyadoo la ilaalinayo lana xaq dhowrayo madax banaanida Soomaaliya iyo sidii dawladda Soomaaliya ay ugu tala gashay inay ula macaamisho cidii kalluunka Soomaaliya rabta haddana in waxaan u baahanahay in nala ku support gareeyo sidii aan ula dagaalami lahayn illegal fishing iyo waxyaabaha la halmaala iyo sidii aan uga faa'iideysan lahayn khayraadka badda yaala si sax ah